war ilaa nin aan waxba arkin baa dhaha waxbaan arkay shalay miyaa maaqaan shalay maahana doraad miyaa shalay ahayd doraad bay ahayd ma xasuusto nin leh gabar shan jira baa ay kursatay kufsiga horta waddankii hadda suu ka noqday waynu ognahay meel walba dumarka baa iska dhiban oo waa iska jeedan dee oo la kufsanayo qadil loogu daray marka anu waxaan isweydiiyey ilaahay horta ha naga dulqaado waa musiibo nagu soo korortay hadday hore u jirtana mayna arki jirin oo malaha internet iyo wax la isugu soo gudbiyo oo mataqaanaa maysan jirin laakiin ka daran basaan bay malaha sii ahaan jirta waa aniga caqligaysa aanu isleeyahay oo hadda internetkii baa dadkii tusaya wixii waxaa jira social media kan soo gudbinaya degdeg usoo gudbinaya kaba sii darane ka daro dibi dhal waxaynu aragno gabar baa la kufsaday waa la dilay gabar baa la kufsaday waa la jir dilay gabar baa la kufsaday ilmo sanad jiraa la kufsaday ilmadi waxa ka sii daran oo maanta noo timid oon shalay masadaraata uu isoo diray wiilkaasi nin weyn oo shan jir baa ay kufsatay 1 2 3 4 5 shan jir baa ay kufsatay عشان waxaan la yaabanahay waxa weeyaan ilmo yaro shan jirahi macquul ma tahay هذا الذي اسمه سوسي دودا يا سيك كلا بحنا حسبنا الله ونعم الوكيل وحيابها قيامها ملها لا تصير كم إذا هاي علاموي كقيامها دي صباح كم إذا هاي وربل إذن كوشنشر وحكوف صدي مالك كينا ما آمني سا أنا ما آمن سني هو يدي دش و very sad هو يدي دشي المهاير ونكا انتو دنبي جيستي هادنا سي أركيس إنو سي دوديو وكسي دوديو waa jiif waa hurday ya anoo jiifa ay waxaas wuxuu dadku la joogo dadka warasada talo wuxuu maleeyay ka aqli badan yahay kolba wala aragna wala shufna masiibada horta meel walba way taala kuwii hore la dilo la kufsaday intii la kufsaday la dilayba gabdha yar oo beebiyay ahaayeen gabdha dumar hooyooyin oo caruur korsanayay ahaayeen ما تاجرية مرة لكن الميروشن سنة شراء only 5 years بانين هردين تأتمات هذا يجنس علشان مش عقل وعقلوا شيء قروان أمسرة وأنا أرين وحلا الصعود بريتو لنا وحن سجينا تنوح كسي وين بين سجينا 5 سنة هذا الله كوفصدي 5 سنة يصاب بعرفت صابه بالله بس سنين سجينا الله بس سنة بعيصاب بعرفت بين سجودنا تاسنا وراها وينور دمانتين إنه مقلنا إلا شنشرك وبكنس أنا يصابه بس سنة تشيل بجركورتين وعن مقلدونا إلهي هنجن تشيو waxa ani ahaan asan nasteex aqligayga yar aan rabay inaan kaliya aan dhaho horta aad iyo aad baan uga xumahay ilaahayna waxaan ka baryaa masiibooyinka qaar waa laga cawdu bilaystaa ilaahay baa laga baryaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam maxaan ku raday ilaahay buu ka tawagali jiray oo ilaahay buu ka maxaan ku hoosgali jiray waxyaabaha masiibooyinka qaar kood ilaahay musu noo soo taagin ma fahanteen ilaahay waxaan ka baryaa Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed in ilaahay nagu haligin masaakiinta agoonta xoolahooda gabdhaha masaakiinta hadda dulmiga iyo dambiga laga galayo waxa kaliya aan oran lahaa dadkaas waa dad xanuunsanaya ummadda laga qabta hadii dawlad jirto hadii maxaan ku dhahaa culumadii ay jirto hadii noqoto hiil iyo hoo dadkan xanuunsanaya ee mataqaana dumarkiina dhibaataynaya lama ogaan karo horta uurku baal lama aha qof walba wixii ku dhacay kun sano ka weyn yihiin ma fahamtay kaasoo kale iyo wax la mid oo meel ha lagu xiro because bartole aragna waxa weeyaan korayana aragna عرورتي سنة دي لح بلاد يحصلوا زي مقلنا كوانا مقل وحنا ضمن وحنا لكن شنشر با وحنا نروح إلى وين وحويان قبر بقى كفصتي 5 سنة شرا 5 سنة شرتا بقى كفصتي وقاد إلى وينات ما فهمتين
dadkan malaha nasteexadii baa ka maqan culimadoo kale ha usoo nasteexayso war garan maayo I don't know in la wadwadana ma fiicno laga hadla laakiin hooyada ilmahaas dhashay ee gabadheedii la kufsaday ee haddana arkaysa ninkii falkaa geystay inuu dood qababa ya oo ilaa war anigu waxaan ahaa nin doobaan ah wiyaan la idulmin kula dulmi baa liiga gelaya hallo shan jirka dulmi baa kaa gashay 5 sano haddaan maanta dhihi lahaa waa 14 jir waxa la dhihi lahaa waa waxbaan dhihi laakiin waa 5 anaba dulmi laga galu taagay ninkaas oo kale I don't know waxaan ku xukumi lahaa anu been kuma sheegayo asarnas dan darays abaad xasbunallah wa ni'mal wakiil waxaan rajaynayaa in aad daawatay muuqaalka fanaanada run ahaantii nasteexa indho waa qof hadal kar ah marnaba kama xishoota ra'yigeeda waana qof lagu yaqaan marka laga soo tago heesaha iyo fanka in ay ka ra'yi dhiibato waxyaabaha ka dhaca baraha bulshada waxaana ku dhiirigelinayaa in gabdhaha Soomaaliyeed ee haldoorka ah inay ka hadlaan arrimaha noocan oo kale ah si gabdhuhu ay u helaan difaac iyo cid u dooda xaqooda sidoo kale ragga Soomaaliyeed ee haldoorka ah ee mas'uuliyiinta iyo culimada isugu jira waa inay arrimaha noocan oo kale ah soo batay bulshada ka wacyi geliyaan lagana soo saaro sharciyo adag si aan mar dambe loogu dhiiran in gabar Soomaaliyeed la dhibaato